سلام كدب شركة نجراد وحكو سابسين هاي سيدا عادود أهدبا حالة دلكا إيو وحا موقضة كل وحا موقضة هاي بريه دنبو حاسوكر لي دلكا سيدا اكتهين حالة كلا دون وصامري مراحل كلا دون وصامري سومالي وحيالها أي هشيس كويهين وحاوه الرأي الدستور haddii dawladnimo laga hadlaayana waa in laga hadlaa heshiis waa in laga hadlaa dastuur haddii dastuur la ogol yahay in qof samaysto ama koox samaystana bal ma wada jiraayo waxaan ogtiin waxyaabaha ka dhashay oo kala duwanaanta ah sida dastuurkii oo la bedelay in haddana la rabo in lagu qabto doorashooyinka dalka ka dhacaya inay wadman wanbowga ka hadalnay annaga aadan u soo dhaweynayna laakiin marka ugu horeysa walman walbow dalkan ka dhici kartaa si uga dhici kartaa see noqonaysa ayadoo walman walbow laga hadlaayo haddana 4.5 in la ilaaliyo annaga sida ay nala tahay noogu muuqato marxaladda hadda lagu jiro ama dhinac siyaasadeed ama dhinac amni ama dhinaca sharciga dastuurka ilaan dastuurkii shacabkaan ay ku heshiiyeen oo lagu hogaaminayay waa la bedelay waxaa la samaystay dastuur khaas ah marka doorashada dhici kartaa maxay noqonaysaa waxaan aaminsanahay doorasho walman wanbood iska daayay tii la yaqiinay oo hore loo soo qaban jiray inay adkaanaysa in la qabto sababtuna wax kale ma aha haddaan dastuurka heshiis lagu ahayn waxyaabaha kalena heshiis lagu maaha maxaa yeele waxa kale ayaga ka dhalanaya maalan guddiga doorashooyinka maxaa lagu beesgareeyey ma guddi koox samaysatay waa guddi qaran oo loo dhan yahay lagu kalsoon yahay oo doorasho qaban kara hay-adihii kale haddii laysku qabto doorashada garsoori lahay manoo dhisan yihin lama dhisan ayib dalka hadday doorasho ka dhacayso soomaha dalkoo dhan inay ka dhacdo ama meesha aysan ka dhacaynin la ogyahay sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan asbaabaha amniga ka sokow asbaaba siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan hadday jiraan soo lama baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadlo waxaan malaynaa markaas inuu aad cadli nidaamkan hadda jooga marka uu doorashada galayay laba gurub baa ka maqnaay doorashooyinka waxaa ka maqnaay somaliland iyo al-shabaab madaxweynaha al-shabaab waxba dhacay iyagaa lama hadlaayo waa xagtaa la marina meesha wax ku dambeeyeen waa ogtihiin somaliland waa maqan tahay waxaa raacday puntland waxaa raacday jubbaland marka doorashada la qabanayo waxaa laga qabanayaa magaalada muqdisho baydhabo jowhar iyo maxaan ku idhaahdaa dhuusamareeb saas sooma abuurayso dadku inay kala tagaan oo haddana isu doonidooda waqti badan lagu bixiyo haddii la rabo doorasho in la hagaajiyo oo doorashooyinkii hore wax ka fiican la sameeyo waxaa la heli karaa khiyaaraad fara badan oo dadku ay ku heshiiyaan qaali lagu yahay ka fiican kowii hore ka corruption yar ka nadiifsan waa la heli karaa ma laga fikiray ma loo soo jeedaa waxyaabaha qadarka waxbaaye guddigu waa shaqaynaya in lagu sheegayo iskuullada iyo jaamacadaha dad in laga qaadayo degmooyinka la geynayo oo la diiwaangelinayo doorashooyin marka waxay noqonayaan doorasho koox samaysatay qola samaysatay aan loo dhammayn dalkan konfalatiga ka soo kabanaya maxaa konfalati cusub loo gelinaa lama baahna marka taas